duqayntii dhigta loo taagayey ee Israa'iil ay sheegtay inay uga jawaabayso weerarkii ba'na ee habeennimadii Axaddii ay soo galaysay Iiraan ay ku qaaday Israa'iil ayaa dhacay. Macluumaadka ugu dambeeya waxay sheegayaan saakay waa berigii in duqayn xagga cirka ah Israa'iil isku mar ay ka geysatay waddanka Ciraaq, waddanka Suuriya iyo weliba waddanka Iiraan. Goobaha la duqeeyey iyo wararka ugu dambeeya haddaynu eegno waxay sheegayaan wararka horta waa warar degdega waana warar isa soo taraya intaynu hadda barnaamijkan ku jirnay warar dheeraad ayaa soo dhacaya. waxaa leeyahay dhowr magaalo oo ku yaala waddanka Iiraan ayaa la duqeeyey. si gaar ah waxaa leeyahay telefishinka la yiraahdo ABC ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa ka soo xigtay mas'uuliyiin Mareykan oo sheegaya in Israa'iil ay duqeysay gobolka la yiraahdo Isfahan. sidoo kale waxaa leeyahay waxaa la duqeeyey gobolka la yiraahdo Al-Suwayda ee ku yaala koonfurta Suuriya iyo gobolka la yiraahdo Baabil ee ku yaala waddanka Ciraaq iyo agagaarka magaalada Baghdad. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa sidoo kale waxay muujinayaan uuro iyo qiiq ka baxaya gobolka Isfahan ama magaalada Isfahan dalka Iiraan gudihiisa markaynu eegno. wakaaladda wararka ee la yiraahdo Faris ee Iiraan ayaa waxay soo sheegtay in laga maqlay qarac deegaanka la yiraahdo Qajafaristan oo ku yaal bariga Isfahan. waxaana la sheegaya halkaas inuu ku yaalo garoon dayuuradeed oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Iiraan. macluumaadkan sidoo kale waxaa ka mid ah sida telefishinka CNN uu sheegayo waxaa la leeyahay dhammaan dayuuradihii marayay hawada waddanka Iiraan in badan oo ka mid ah gaar ahaan gobollada bartamaha iyo galbeedka ayaa la joojiyey saakay aroortii. waxaa kaloo wararkan ka mid ah in ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan la geliyey heegankii ugu sarreeyey dhammaan saldhigyada dhanka militariga. waxaa kaloo warkan ka mid ah telefishinka Al Jazeera ayaa hadda wuxuu tabinayaa in uu la xiriiray mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada ee Mareykanka kuwaasi oo sheegaya inay ka warhayaan weerar Israa'iil ay qaaday. waxaa la leeyahay ilaa iyo 3 magaalo oo ku yaala waddanka Iiraan ayaa duqayntan la egtay inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan ilaa iyo 7 inay yihiin. laakiin waxaa la leeyahay dhammaan diyaaradihii tegi jiray Tehran, Isfahan iyo Shiraz ayaa gebi ahaanba la joojiyey. sidoo kale wararkan waxaa ka mid ah wakaaladda wararka ee Faris ee laga leeyahay waddanka Iiraan sidoo kale hadda waxay tibinaysaa in garoonka dayuuradaha ee Isfahan iyo weliba saldhigga militariga ee lagu magacaabo Hashtam Shakari ee ciidamada cirka Iiraan ay leeyihiin in weerarkan lala eegtay. waxaa sidoo kale hadda soo baxay war sheegaya garoonka dayuuradaha ee magaalada Tehran ku yaala ee lagu magacaabo Imam Khomeini in gebi ahaanba laga joojiyey diyaaradihii tegi jiray. sidoo kale warkan waxaa la leeyahay gebi ahaanba waxaa xaalad heegan la geliyey nidaamka difaaca ee waddanka Iiraan. war hadda ay tibinayso wakaaladda wararka IRNA ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in ciidamada Iiraan ay ka hortageen weerar Israa'iil ay soo qaaday kaasi oo sida wararku sheegayaan bartilmaameedkiisu u ahaa saldhigyada militariga ee ku yaala waddankaasi Iiraan. waxaa kaloo soo baxaya in hadda golaha amniga qaranka ee Iiraan kulan degdeg ah ay yeelanayaan sida xogtan soo baxaysa ay sheegayso. xaalad adag ayaa lagu soo warramayaa inay jirto. sidoo kale waxaa la leeyahay waxaa iyana soo baxday macluumaad kale oo sheegaya in diyaarado kale oo hawada waddanka Iiraan marayay ay ka leexdeen qadkii ay ku socdeen taasi oo loo macnaynayo inay tahay xaaladdan imika ka soo korortay waddanka Iiraan oo duqayn Israa'iil ay la eegatay daqiiqada ka hor. warbaahinta Israa'iil laga leeyahay ee lagu magacaabo IBC ayaa waxay hadda xaqiijinaysaa in Israa'iil ay weerar ku qaaday Iiraan. warkanna waxay ka soo xigatay mas'uuliyiin magacooda ka gaabsaday oo ka tirsan militariga Israa'iil sida ay sheegayso warbaahinta la yiraahdo IBC. warkan sidoo kale waa war hadda soo dhacay. wararkan dhammaantood waa warar soo taraya. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale waxay ka soo xigatay mas'uuliyiin Mareykan ah oo xaqiijinaya ayaguna in Iiraan gudaha waddankaasi gobollo ku yaala Israa'iil ay duqeymo ka geysatay. arrintan sidoo kale waa la xaqiijinaya. telefishinka Iiraan laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in gobolka Isfahan laga maqlay qaraxyo waaweyn
isla markaasna waxa la leeyahay nidaamka difaaca ee gantaalada ka hortaga iyo qalabka digniinta ka bixiya ayaa laga maqlayaa goobo kala duwan oo ku yaala waddankaasi Iiraan. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xalay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Hussein Amir Abdulhayyan hadal uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in jawaab kasta oo ay isku daydo in Israa'iil ay ka bixiso weerarkii Iiraan ay qaaday looga jawaabi doono gacan adag. horeyna waxa u jirtay in mas'uuliyiinta Iiraan ay ku celceliyeen weerarkii hore inuu ahaa wax iska fudud, laakiin haddii Israa'iil ay qaado tilaabo kale la soo sheegaya in jawaab adag la siin doono. wararka maanta waxaa sidoo kale ka mid ahaa in Israa'iil ay diyaarinayso weerarkan ay qaado wixii ka dambeeya 3 bishan oo la yiraahdo munaasabad diimada Yuhuudda ay leedahay oo la yiraahdo Passover ayaa jirta la yiraahdo. marka munaasabadaas kadib baa qorshuhu ahaa, laakiin hadda sida muuqata Israa'iil waxay qaaday weerar culus. weliba dadka khubarada arrimahan ka hadlay waxay leeyihiin weerarkan lagu qaaday Suuriya iyo Ciraaq ayaa waxa uu ka macnay ama ka turjumaya in Israa'iil ay doonaysay diyaaradaheeda in aysan la kulmin nidaamka raadaarka ee wadamadaasi kuwaasi oo laga yaabo inay u degi karaan Iiraan. laakiin waxa la leeyahay arrintan waa arrin aad iyo aad u adag, waxaana laga yaabaa dagaalkan in uu faafo gobolkana waa dagaalkii laga degayay. warkan waa warar degdega, wixii soo kordhana barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.